gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Baxdo waalidiin iyo kormeerayaal ka socda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta degmada Baxdo kaga qayb galay daafurka imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug oo maanta ka bilowday degmooyinka Galmudug. Baxdo waxaa kaga fariistay 69 arday oo sanadkan soo dhiganayay fasalka 8aad. Ardaydan oo ku galayay imtixaanka Baxdo School waxa warqadaha u qaybiyay gudoomiyaha degmada Baxdo ka hor inta uu imtixaanku bilaaban. Gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay daafurka imtixaanka ayaa dhiirigelin iyo dardaan u soo jeediyay ardayda. ugu horeyn gudoomiye Maxamed Cabdullaahi Muuse oo imtixaanka daafuray ayaa yiri waxaan idin rajaynaynaa guul, waxaan idin rajaynaynaa kaalimo insha Allah taala. anaga degmadan waxay tahay dadka fiirsanaysaan u bixii soo baxay baatiyin sida ugu qurux badantiin waxaan rabnaa in ummadda dhan ugu qurux badnaato. waxaan rabnaa dhiirigelin aad siisaan ilmaha idin la midka ah ee waxbarashada haysan oo fursadan oo kale aan helin dhiirigelin siisaan ku soo tashkiilisaan in waxbarashada sameeyaan adinkana aad noqotaan dad lagu dayo karo. hadda adinku aad noqotaan dad lagu dayo karin qalqal loocan dacdabada ku dayo mayso ladina soo raacay may, laakiin haddaad noqotaan dad wanaagsan adab leh sharaf leh dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya wax weeye waa ma sha Allah dad lagu dayo noqonaysa. teeda kale dalka idin sugaya dadka jooga idin sugaya waxa la sugaya waa idinka. maantay membarka hadda maanta dhawaan taaganahay idinka bari taagan wixii aad ku soo istaagi lahaydeen anagu waliba nasiibka idinku aad hesheen ma ayna helin anagu ma aynan helin iskuulaad ma aynan helin juhdiga laydinku baxshay nolokuma ma bixin fursadaas ma aynan helin. maanta naga faa'iido badantiin oo naga nasiib badantiin ka faa'iideysan nasiibkiina ha ku cayaaranina mustaqbalkiina midka degmada midka dalka. anagu adinkaan fiirsanayna maanta dii la yiraahdo degmada Baxdo ardadii ka soo baxday waxa baastay intaas kaalimo gashay waxay noo tahay farxad runtii qalbigeena soo jiidanaysa. degmada oo dhan ay soo jiideen Galmudug oo dhan ay soo jiideen ku fakerow qof kasto inaad kaalinta koobaad gasho. نبينا عليه الصلاة والسلام حولي هاي المؤمن القوي خير وأحب إلى من المؤمن الضعيف. قال المؤمن في الفرعون أياك غير بدن مدقنا في الفرعون محاكم مذا إذا ولو الإسقلين وحتى واتحام وأرك جري وباس جري كانوا والمد أضاف حسن والدجن قلبي أنا كهين تقول سنة ستحام كهين تقشاه لكن أنا قلبي كون ضعيصه فشل ما يصو وحب لا يهين هذا كوقع من قلبك إلهينا وحد كبر يسامرك بالله يصو إلهينا كفر ذيو. سيدنا نبينا الله عليه الصلاة والسلام يحرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ويحكوا أنفعها كد ذال وحبا صبرتين غلبك كود ديارسن قالنك قد ورطا وديارسن تهي الدعاء الصمينه دغنانا الصمين ان الدعاء الهي برد انو كفرديو ان سيد دغنو شقده waxaasoo wuxuu anfacaya kamid yihiin. ardada waxaan ku dhiiri galinaynaa anigoo ka wakiila guddigii waalidiinta waxaan ku dhiiri galinayaa inuusan wax dhib leh oo kii aad la soo qaadi jiray oo macallimiintu inta soo qaadi jireen uusan waxba idinkaga duunayn. markii aan joognay dugsigaas hoose nin kasta dadaalkiisii iyo juhdigiisii iyo gabar kasta waan dareemaynay. waxaa la idinka rabaa qof kasta inuu sidii u dadaalo aadaabtii xagga ku joogteena inaad xaggan la timaadaan. salaan kadib aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan Baxdo imaanno ardadan aan kormeerayaal u noqono waa ku faraxsanahay. waxaan rabaa inaan dardaaran yar oo ardada ku saabsan aan isku baraarujino arday qofka hadduu hamigiisu sareeyo meel sare u aadaya tusaalahaan haddaad ku fakartid adoo arday oo reer Baxdo ah inaad kaalinta koobaad Galmudug gashid waad galaysaa, laakiin haddaad ku fakartid inaad Baxdo ka baastid waa dhacay. marka hamigiina kor u qaado ku fakara arday koobaad inaad noqotaan aniguna waa rajaynaynaa insha Allah inay Baxdo noqoto arday ugu horeysa. waxaan rabaa markii imtixaanka lagu dhiibay aad buu u fudud yahay insha Allah wuu fududaan doonaa inaadan ku khalkhalin inta taqaanida ka shaqaysid qish aadan raadin asu kalsoonaatid hadda asu kalsoonaatid heer saraad gaareen insha Allah taala waxaad ku dadaashaan adigu nin kasta naftiisa inuu ku kalsoonaado iyo gabar kasta qofku naftiisa hadduu ku kalsoonaado wax kasta wuu ka gudbayaa. laakiin hadduu isiraado yacni qof kale raadi weligiis darajo ma gaarayo qofku qalbi kale laba qalbi ma leh qofku waxa fiican inuu naftiisa iyo xooggiisa awoodiisa isticmaalo. Cabdulwaaxid Xuseen Sheekh Xasan bandhiga